وزير ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Quluuc oo uu heliyo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Khalid Cumar Cali ayaa kormeer shaqo waxa ay ku tageen xarunta safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. booqashadan mas'uuliyiinta ayaa la xiriirtay shaqada ka socota safaaradda ee dib u dayactirka lagu sameeyay dhismaha safaaradda. safiirka dowladda federaalka u fadhiya dalkani Kenya Ambassador Jamaal Maxamed Xasan ayaa mas'uuliyiinta uga warbixiyay qaabka ay u shaqeynayso safaaradda iyo waxyaabaha uu ku soo kordhiyay tan markii loo magacaabay xilka safiirnimo. bismillaahir rahmaanir rahiim sidaad halku aragtaan waxa maanta xafiiska nagu soo booqday madax ka socota dowladda Soomaaliya waxaana la jooga wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka ku-xigeenka qorsheynta xogayaha joogtada wasaaradda qorsheynta iyo saraakiil ka tirsan wasaaradaha qorsheynta iyo maaliyadda dhinacay waxa taagan konsulka safaaradda iyo xogayihii labaad waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo booqdaan maanta oo inooga warramaan shaqooyinka ay halka u yimaadeen iyo warbixin guud ay naga siiyaan xaaladda meesha marayso. wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Quluuc iyo wasiir dowlaha arrimaha dibadda mudane Khalid Cumar Cali ayaa bogaadiyay qaabka hanaanka shaqo ee safaaradda iyo waxyaabaha la taaban karo ee uu ku soo kordhiyay Danjire Jamaal. waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo safaaradda Kenya gaar ahaan safiirka cusub iyo ku-xigeenkiisa iyo shaqaalaha guud ahaanba sida weyn oo isbedel ka muuqda ay wax uga qabteen safaaradda runtii wax lagu hambaliyeeyo way waxaan leeyahay safiir Jamaal halkaas ka wad meel fiican ay arrintu taaganta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay isbedelka ka dhacay safaaradda quruxda ka muuqata maanta waa safaarad marka waxaad moodaa arrintii la dhihi jiray maxaa la yiraahdaa waxaas wixii cusubba caalanka jecel Jamaal waa la jecel yahay xeel waa cusub yahay hawl wanaagsan waa qab adiga iyo konsulkaba waan idinku hambalyeynaa dowlad ahaan waliba gaar ahaan wasaaradda qorsheynta oo aad mooddo howlaheedii inaad si fiican dhinac uga jirtay inaanu kugu garab qabanno missionkaada waa kula shaqeynaynaa muddada gaaban ee ay joogeen safiirka cusub Ambassador Jamaal iyo konsulka ku-xigeenka missionka ee safaaradda mudane Cali iyo ku-xigeenka second secretary-ga safaaradda maadaama dhiga cusub ee safaaraddu ay runtii ay yeelatay ama leadership cusub ay yeelatay fursad ay ahayd in safaaradda renovationka ay ku sameeyeen iyo isbedelka tirada badan ay ku sameeyeen safaaradda iyo meeshii ay u ekaysiiyeen safaarad rasmi ah oo la jaanqaadi karta safaaradaha ka furan caasimadda Kenya ee Nairobi isla markaana isbedel wanaagsan ka muuqda iyagoo in badan ka shaqeeyeen nidaam ahaan maamul ahaan iyo siyaasad ahaan intaba safiirka iyo konsulka waxayna siiyeen brief ah muddadii ay joogeen 2 bilood iyo ziyaadada ahaa ee shaqeynayeen ee xilka ku magacaabanayeen waxyaabihii ay qabteen iyo talaabooyinkii ay qaadeen hana qabto arrimaha bulshada oo ah qaxootiga iyo ilaa iyo dhadhaabtitaankooda ay tageen iyo la xiriirka ay la xiriireen hay'adihii ku shaqada lahaa midda labaad Somali community-ga ee halkan joogaan ee u badan ganacsatada dadkii maxaabiista ahaa ee ku xirnaa xabsiyada ee Mombasa booqashadii ay booqdeen isla mar ahaantaasna iyo sidii arrintaas ay u dardargelin lahayd sidii teamkaasi loogu soo wareejin lahaa dalka gudihiisa maxaabiis ahaan waxyaabaha talaabooyinka kale ee qaadana ka mid tahay dowladda Kenya xiriirka oo aad loo hagaajiyay iyagoo halkan ka suurtageliyay bilateral relation iyo bilateral cooperation oo labada dowladood ah oo hadda ka hor team wasiirka hogaaminayo oo halkan wada yimaadeen iyo BS-yada qaarkood hadda waxaa nagala jooga diirshe iyo shaqooyin tiro badan oo runtii la taaban karo. dhismaha safaaradda Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa xilligan waxaa ka muuqata dib u dayactir aad u xoogan iyo dardar shaqo. Cusub Xuseen Aadan, telefishinka qaranka magaalada Nairobi.